بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa meeshan ka dhacay waa musiibo aad u weyn oo aanan hadda ka hor anigu arag waxaan leeyahay marka hore ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida waxa dhammaan baan u tacsiyeynaya gaar ahaan qoysaskii meeshan uu dad kaga dhintay marka hore waxaan leeyahay dadka dhintay rabbi ha u naxariisto ilaahay jannaha geeyo inta dhaawacanna waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo inta oo qaraabadooda iyaguna la oo aan hadda nolol geeri lagu ogeyn ilaahay waxaan su'aalanaynaa bi asmaa'i wa sifaati iyagoo nolol fiican in la helo dadka hantida ay kaga burburtay waxaan leeyahay ilaahay hantidiina bedel degdega ilaahay ha idinka siiyo inta markaan insha Allah ta'ala aan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa dhibkan markuu dhacay dadkii gurmaday ee Soomaalida la hoogeyrkooda la gurmaday oo dadku walaalahooda u soo gurmaday oo dhiiga u shubay oo waxa weeye dawo u keenay waxay heli karaan basiyay iyaguna waan u mahad celinaynaa jazakumullahu khayr baan leenahay waxaan ugu horeeyay Soomaalida marka la soo dhaafo dawladda Turkiga jazakumullahu khayr inay diyaarad iyo gurmad iyo dhakhaatiirba soo direen baan maqalnay waxaan rajaynaynaa dawladaha kale oo muslimiinta inay ku daydaan oo iyaguna sidaas oo kale ay yeelaan insha Allah ta'ala taas markaan ka gudbo hadii waxa meeshan ka dhacay waa wax oo wuxuushnimo ah diin iyo aqli iyo wax aqliga saliimka iska dhaafay kan jiran hataa uu aqbali karo ma ahan waxaan oo kale raga sameeynayo waxaan dhihi lahaa anigu taqriiban runtii muddo aad u dheer ka hor oo laga joogo 12 sano wax ku dhow baan niri waxaan oo kale nimayahow ka daaya dadka waan nagula dirareen oo way joojin waayeen runtii hadda ka hor waxaan oo kale shaamow bay ka dhaceen hargaha iyo saamahay ka dhaceen masjid bakaaraha ku yaalay ka dhaceen meel kale ka dhaceen maraaxil bay ahayd marna markay waxaan oo kale dhacaan anaga ma ahin baa la dhihi jiray oo aan maqalnay laakiin markii dambe waxa la arkay wixii markay kobceen kadib in la sheegto anaga yeelnay bal yiraahdaa la arkay waxaan dhihi lahaa waxaan oo kale wuxuushnimo weeyaan ilaahay diinkiisa iyo kitaab iyo sunna iyo aqli midna ma waafaqsana dadka noocaas ah waxaan leeyahay waxaan oo kale sameeynaya tawba furan oo inay ka toobad keenaan oo waxaan iska dhaafaan ayaa u roon hadii sidan janna lagu raadinayo jidkeedii kanu maaha waxaan leeyahay dadka waxaan sameeyo waxaan leeyahay toobad keeno oo waxaan iska daaya wixii shalay lagu kala dhintay way natiijo waa lagu keeni waayay waxba waa lagu keeni waayay waxa fiican in laga soo noqdo oo la toobad keeno oo waxaan iska dhaafaa roon iyaguna saasaan leeyahay waxaan ula jeedaa cida aan sheegaya waa shabaab meelaha waxaan ka maqlaayay in la leeyahay balaag water baa waxaan ka dambeysay iyo taasna anigu shakhsiyan u malayn maayo oo kuwaas dhihi maayo maxaa yeelay balaag water maada qaraxdana way keeni karaan baabuur iyo lacag iyo waxna way keeni karaan laakiin qof isqarxinaya nimanka ma keenin marka dadka ka dambeeyo basamaadkoodii farahooda waxaan ay ku yaalaan waxaan leeyahay ka hara oo ka toobad keena qof muslima dhiigiisa iyo intaanoo hantiya in la burburiyo iyo dadkii daraasiin iyo jumle in loo laayo adduunyo aakhira midna wax lagu gaari maayo taas insha Allah ta'ala intaas ayaan ka dhahayaa biidnillahi ta'ala dhalinyarada hawsha loo soo dirayo waxaan leeyahay qofka muslimka intuu nool yahay tawba u furan intuu nool yahay qofka ma lam yuqarqir buu nabiga yiri ilaa naftu ay dhuunta soo gaarto qofka tawba furan qof rabo inuu janno galo marka ugu dambeysayna boqolaal nafsahay u qaatay qofka masiirkiisu ma hagaagsana waxaan leeyahay yaan been la idin sheegine sidan oo kale in wax lagu dad la yeelo ajir iyo janno lagu heli maaye baraarugan leeyahay qofka sidan waxaan ku soo diray isaga ha yimaado ilmihiisana ha soo diro haduu isagu iman waayo ilmihiisana soo diri waayay adna ilmadadu baa tahay aabaha iyo hooyadaaba waxaan ka naxaye waxaan leeyahay adigu xataa hadaad waxba isku fali weysay waxaan leeyahay tawba furano ha laga soo laabto intan ha laga soo laabtaan leeyahay waxba lagu gaari waayay ha laga soo laabto wajazaakumullahu khayr